هاي ما حسك وحرتين سوري ردايان هاي عيالك عربتها وحوجاي خيالسي سنة نوصل ردين مرك بيكلل هذا أوصى عرفنا مرك نقص هذا كحرمية مرك تكون دوي صو عر هاي مقرته واي ما حالك وتماتين إن ندافن إن شاء الله لا يجرب أن تمر هاي مرك فرصة حدود ما حيلك تاي رجال اللي يقعد بحدودها وبريبا فسحنا جعلنا هاي بيرتو إن شاء الله أم بعاو وقت إلهي نصور تقلي إن شاء الله فرنا نجعلنا عبد الله فروي محسب بين سنة حدودها هاي واسكلا وانا أم بواسك جوجنا وسوجنا إلا وقت جينا وقت dad badan oo Soomaaliya arkay oo ka qoostay xaaladooda noqday maxay idinka ku hayeen markay la hadda meeshan hadaysan wada anaga hadda rajaan ka leenahay waa sugeynaa inaan suurta gashaan jecelna ما سنتهاي ندومي وحان سعودال soo bilawnay kadib markii ay akhbaar ka soo baxday madaxweynaha Turkiga oo ku ogolaanayo in muddo 72 saacadood ay furan yihiin xuduudaha dalka bad iyo bari iyo meel walba laga soo gali karo marka maanta u dambeysay saacadihii uu qabtay ilaa ay haddana wax dad gudbay ama meesha ka socdo ma jiro kaliya waxaan lagu hayaa xuduudka u dhaxeeya Turkiga iyo Greega cidna uma gudbi karto xuduudka Turkiga meesha soo dhibaato aad badan ka jirto maalin dadka meesha isku jooga waa dhibaateeya waxa dadka lagu buufiyaa sunti dadka ka ilmeysiinaysay marka xaaladda aad bay u cakiran tahay habeenkii waa iska qabow waa dareem kartaa cimilada maxaa Yurub ma jirto wax cunto ah ee dadka helaan qofkii lacagtiisa wata mooyaane dad meesha waxa joogda joog kala duwan oo ay ka mid tahay dadka Soomaalida Afrikaan badan sida dalka Itoobiya Iraq Syria Pakistan iyo waxa joogta dalalkan inda yarta dad ka mid ah Uzbekistan ay joogaan marka xaaladda aad bay u xun tahay dacdooyinka ugu xanuunka badan meesha ka jira wax nooga taabo dacdooyinka ugu xanuunka badan waxa ka mid ah waxaa jira maamooyin oo ilmo caruur hal sano iyo wax ka yar wata tusaalahan waxaa leeyahay xuduud waa la furayaa isku imaada markay isku imaadaan ay caruurtii waxaa lagu buufinayaa sunti dadka ka ilmeysiinaysay ilmahan uma adkeensan karaan waxaa jira ilmo qaar hadda naqaska ku xirmay oo caawinaad la siinayo ambalaasada Turkida lagu daaweynayo oo qaar naqas ku xirmeen meesha aad baa la isku kor saaran yahay meeshan way yartahay dadka joogan aad bay ugu badan yihiin marka aniga waxaan go'aansaday inaan u noqdo meeshii aan eelba ka imaaday oo dalka Turkiga marka hadda waxaan u noqonayaa caasimadda Istanbul tahriib noocan oo kale marta isku dayday ما waa wax aad u adag waxa waaye ebalbo qalad bay waxaan xogta aan helnay iyo xogta meesha ka jirta aad bay u kala fogtaa xogtana la siibay xitaa in xuduudku iska furan yahay la gudbi karo laakiin wax furan ma jiraan kaliya waa arimo wax isleeyahay siyaasadeed oo aad meeshaas dadku lagu dhibaateenayo حد كان جوجنا سيد وجدين ضدكو هلكان أي جود بيان أو عيد ماذا إلى هذا حدودها تركيا الجوجان قيبتك اللي ضدك الجوجان كل ضد فرق بدن وهلكان كسرنا وضيع أنا عرفني أو ظروف كل جديد سن أما ظروف أد حقوق بدن أي كم وقته دبل حقوق بدن يا قابتك كداعية هلكان وحنا نغلس سجن أما الجوجا ورياشي كل جديد سنة أدونك كسعودي يو يدا قعدتي قبل سن رمضان مدوي UNHCR كسعودة Soomaali fara badan ayaa la sheegay in gudaha ku jiraan bal wixii soo kordhay dib kala soo socodsiin doona awlan assalaamu alaykum magacayga waa Iskri Axmed Gidi oo waxaan ka imaaday magaalada Ankara waxaan imaaday magaalada Andera waxaan u imaaday bixitaan oo inaan u baxo oo damanka oo dariska ah halka markay imaan waxaan kala kulmay dhibaato aad iska badan oo ka mid ah hooy la'aan iyo raashin oo soo heen iyo haweenkii oo cadceed oo dabeelo jiraan oo aad u daran dhaxamo xasas ka jiraan gormeet midadii gormeet soo gashay ana waxay imaaday haweenkii jimciyaha soo galay waxaan joogaa laba haween Soomaalida aad aragtay intay leegtahay inkastoo Soomaalidu wadanka hadda oo maashan imaatay boqolkiiba dad yar ka yihiin dadka Suuriyaanka iyo dadka badan yihiin haddana waxaa jirta dhibaatooyin oo aad u badan oo xagga nolosha waxa uu kalifay haweenkii waashan oo dabeelaha aad u jiran oo qabow badan oo dhacayo marka oo haweenka la jiifo karin oo haweenka la taagan yahay oo waxyaalo dab iyo waxaas lagu nool yahay isku diireemaanayo dhibaato culus oo ka jirto marka asaas ay u gulifta inaan iska laabto waxaan go'aansan inaan dib u laabto magaaladeeda waxbarashadeeda dib u bilaabo waa maasanta marka hadda kadib tahriib dambe isku madayay Soomaaliya waa soo qoosatay indaga wax ku aragtay ma sha Allah ayaale waxaan soo gaarnay hadda xuduudda Greega iyo Turkiga u dhaxayso halkan waa xuduudii meesha ku keed waay halkan waa Greega
waxaan soo aadnay maanta sida dadka Soomaalida halkan ku dhibaataysan aan warbixin ugu soo sameyn lahayn ama xaaladda ay ku sugan yihiin aan u soo ogaan lahayn xaqiiqatan dadka Soomaalida aan la kulanay ilaa hadda qaarkood waxay sheegayaan inay aad iyo aad uga warwarsan yihiin xaaladda meeshan ka jirta waxaana ay tilmaamayaan inay haddii ogaan lahaayeen inay sidan tahay aysan mar dambe tahriib isku dayeen laakiin arrintaasi waxay waana u tahay kuwa dambe oo garan kara culayska halkan ka jira gabdhaha aan la kulanay waxay sheegeen inaysan soo tahriibi lahayn haddii ogaan lahaayeen in dhibaatada noocan oo kale lagala kulmayo tahriibka waxaan u malaynayaa inay waana u tahay kuwa ay gaaraysa fariintooda